daawadaha qiimiga badan oo ku soo dhowow IM252 maadaama aan inta badan adeegsano Messenger waxaan maanta ka hadlayaa waxa loo yaqaan secret conversation ama wada sheekaysiga sirta ah. balan ka jawaab su'aasha aad isweydiinayso ee ah waa maxay wada sheekaysiga sirta ah ee Messenger-ka. waa qayb ka mid ah Messenger-ka oo kuu suuragelinaysa in wada sheekaysigaaga uu yeesho awood sireed oo dheeriya. tusaale ahaan waxaad qof u diri kartaa fariin iskeeda isu tiraysa inta u dhaxaysa 5 ilbiriqsi ilaa 24 saac gudahood marka aad fariinta dirto kadib. balan ku sii faahfaahiyo marka aad doonto in aad xog sira ama xasaasiya la wadaagto qof aad Messenger kula sheekaysanayso, wada sheekaysiga sirta ah ee Messenger-ka waxa uu kuu suuragelin karaa in aad fariimahaaga u dirto qofka kale balse aad waqti ku buuxiso, oo haddii uu waqtigaas dhammaadana ay fariintaas iskeeda isu tirto. hadal badan ahaan ma buuxshay, balan gudaha u galo kuuna soo kooba sidaad uga faa'iidaysan lahayd adeegga secret conversation ee Messenger-ka. anna waan soo laabanayaa. si aad u dirto ama lagugu soo diro fariimaha sirta ah ee Messenger-ka, marka hore gal Messenger-ka kadibna taabo halka sare bidix ee uu sawirkaagu ka muuqdo. wax yar hoos u soco oo xulo secret conversations. ha ilaawin inaad halkan on ka dhigto, haddii kale ma diri kartid fariimo sir ah lagumana soo diri karayo. halka hoosena waxaa kaaga soo muuqanaya taleefanada aad ku adeegsatay secret conversationska hadda ka hor ama hadeerba. markaad on ka dhigto kadib, dib u soo laabo oo taabo calaamadan kor midig ku taala si aad fariin cusub u dirto. marka aad halkan joogto, fadlan kor ka xulo secret si aad u dirto fariin cusub oo sir ah. haddii aad telefoon Android ah adeegsanayso, qufulka sare taabo. marka aad halkan marayso, taabo magaca qofka aad u dirayso fariinta sirta ah. waxaa markaaba kuu soo furmaya meel cusub oo aad qofka kula sheekaysato. ogowna fariimaha aad halkan isku weydaarsataan way ka duwan yihiin fariimaha kale, waayo midab ahaan kuwa secret conversationska waa madow sida aad shaashada uga jeedo. sidoo kale wada sheekaysi cusub ayaa idin furmaya labadiinaba, xitaa haddii aad horay u wada sheekaysan jirteen. si aad fariinta aad dirayso waqti ugu buuxiso, kaliya taabo calaamada saacadda dhanka bidix ka xigta halka aad fariinta ku qorayso. kadibna xulo waqtiga aad doonayso in fariintaada ay ku tiranto. kolay waa inta u dhaxaysa 5 ilbiriqsi ilaa 24 saac gudahood. haddii aad tusaale ahaan dirto fariin 10 ilbiriqsi ku tirmaysa, marka uu qofku furo fariinta waxaa loo tirinayaa 10kaas ilbiriqsi, kadibna waa laga tiri doonaa. marka laga tirana ma ogaan doono in halkaas fariin laga tiray, oo ma jirto calaamad ama qoraal muujinaya in fariintaadii laga tiray qofka kale. haddii aad sawir ama muuqaal dirto oo aad tusaale ahaan ku buuxiso 10 ilbiriqsi, 10kaas ilbiriqsi kadib qofka kale awood uma yeelan doono in uu arko sawirka aad u dirtay, oo humaag ayuu ka wada noqonayaa sidaad u jeedaba. si aad u tirto wada sheekaysiga sirta ah, taabo sawirka sare ee qofka aad la sheekaysanayso, kadibna hoos ka xulo delete conversation. haddii aad sidoo kale tirayso guud ahaan wada sheekaysiyada sirta ah oo idil ee aad samaysay, fadlan taabo sawirkaaga qaybta sare bidix ka muuqda marka aad joogto liiska wada sheekaysiyada, kadibna xulo secret conversations, kadibna xulo delete all secret conversations, kadibna xaqiiji un. sidaas ayaadna ku tirtay guud ahaan wada sheekaysiyadaada sirta ah. balan dhowr qodobo kale ku kordhiyo intii aan kuu sheegay. 1. screenshot ayuu qof ka qaadan karaa fariimahaaga haddii aad ugu dirto secret conversation, taasna weli sirtaada dhaawac ayay ku noqon kartaa. 2.
qoraal keliya wicitaan ma jiro marka aad ku jirto secret conversation. 3 marka ay kuu soo dhacdo fariin sir ah ma ogaan doontid qofka ay kaaga timid ilaa aad fariintaa furto. 4 marka la joogo liiska wada sheekaysyada sirta ah waxaa la socda quful xiran oo yar oo caddaynaya in wada sheekaysigan uu yahay mid sir ah. balanku weydiiyey muhiim ma u aragtaa wada sheekaysyada sirta ah ee messengerka? fadlan qaybta hoose nagula wadaag jawaabtaada. waan kaaga mahadcelinayaa daawashadaada muuqaalkan. fadlan ha ilaawin inaad kusoo biirto asxaabta im252 haddii aadan ka mid ahayn. waa inoo muuqaalka xigay biidankii nabadgelyo.